أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قال الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. صدق الله العظيم. walaalayaal waxaynu ku dhex jirnaa bishii barakaysneed oo ramadaan. bishaan waxaanu soo qaadanaynay duruus ramadaaniye ah oo ramadaanka qaybihiisa markaasi si munaasab u ah aanu maaragtay u fiirinaynay oonu soo qaadanaynay. waxaanu soo gaarnay haatan darsigeennii 18aad ayaanu soo gaarnay. saa horeba darsigeenna hore oo 17aad u soo sheegnay. halkan waxaanu ka bilaabi doonaa waxyaabaha manhiyo canhuga ahoo ramadaan iyadoo lagu jira la iska reebay ayaanu soo qaadan doonaa, oo waxa weeye haddana ramadaanka uu ku jabaayo. sidaan darsigeenna hore aakhirkiisa aanu ku sheegnay ne xadiiskii bilowga noo ahay oo markaasi wiqaacu ramadaan markaasi nin haweentiisi ku dhacay oo nabiga calayhi salaatu wasalaam su-aal weydiiyey. arrintaas ayaanu maaragtay qeyb ayaanu ugaga dhex jirnay. haddana ayadiiyaanu maaragtay hadda darsigeenaan ka bilaabaynaa. waxa weeye qaybaha kaleentoodoo ayaguna manhiyo canugaa la iska reebay ayagana isla darsigeenaan ayaa insha allahu tacaala ku qaadanaynaa. xadiiska marka abi hureyre laga wariyey ayaanu maaragtay soo qaadanayo nin ayaa nabiga calayhi salaatu salaam u yimid. ninkaas magaciisa iyana waanu soo sheegnay, acraabiyuu ahay, laakiin hadda waxaa weeye xukunkiisu cidkaas ayuu maaragtay ku fulayaa. ninkaas marka magaciisa waa soo qaadano salamata ibnu sakhar ama waxaa leeyahay salmaan ibnu sakharaa la dhihi jiray. ninkaas nabiga calayhi salaatu salaam ayuu u yimiday sida uu sheegay abu hureyra. kolkaas ayuu wuxuu dhahay: halagtu yaa rasuul allah, ilaahay rasuulkiisa waa halaagsamou dhahay. waxa weeye ficil oo naftayda sabab ugu ah inaan halaagsamo ayaan sameeyey. arrin dhibaato leh inay tahay ayuu u jeedaa, waa ictiraafsan yahay. addoonkuna sidiisaba dembigiisa hadda u ictiraafo, ilaahay subxaanahu wa tacaala kafuur raxiim weeye. waxaa laga rabaa addoonku markuu ilaahay u soo noqonayo ictiraaf inuu la yimaado. hadduu ictiraaf la yimaadane ilaahay raxmaddiisa waasicada ayuu helayaa. ilaahay baa u dhaafaaya oo waxa uu noqonayaa attaa'ibu min adembi kama laa demba lah. laakiin waxaa nasiib darro ah qof maaragtay dembi midka ugu xun gelaya, haddana waxba aan ictiraafsanayn ee inuu dembiga galaba ku faraxsan oo hadda mid kale sii raadinaya, ama wixii markaasi hore uu soo sameeyey ee dadka uga sheekaynaya ku qoslayo raalli ah, saan wax u dilay, saan wax u dhacay, saan wax u kufsaday ayuu weli mar walba ku macaansanayaa. markii meelaha majaalista ahoo fadhi kudirrada la isugu yimaado, qofka sidaas dembiga laga cafi maayo, sababtoo ah shuruuddii towbada ayaa ka maqan. haddana waaba qof aan markaasi aan ka murugsanayn wax uu sameeyey. marka ninkan wuxuu dhahay: rasuulki ilaahayow waan halaagsamay. nabigu markaas wuxuu dhahay: wamaa ahlaka kow dhahay, war maxaa ku halaagay? markaasuu wuxuu yihi: waqactu imra'atii fii ramadaana, haweentayda ayaan bil ramadaan iyadoo la joogaan ku dhacay oon jamaac ugu tegey. saas ayuu dhahay. sidaa markuu dhahay macnaha maxaa io xugum how ka wadaa? rasuulkeen wuxuu yihi calayhi salaatu salaam: hal tajidu maa tuctiqu raqabatan, ma heli karaysaa qof addoona oo raga ama dumara oo addoonnimo loo haysto waxaad ku xurayso xoolo ina aad dhiibtid, aad u iibisid eed xuraataa ad tiraahdo, ma heli kartaa u dhah rasuulku. maxaa yeela kafaara murataba ayaa la yidhaha middaan. haddii shaygan la waayo ayaa midka kale la aadayaa. haddii kaas la waayo ayaa kaas 3 derajo waaye. kafaaradan kafaara la murataba ayaa la yidhaha. marka kafaaradan kafaaratu wiqaaci ramadaan kafaara murataba la yidhaha. ayadoon taas la weyn midda kale lama aadi karo. markaasuu dhahay rasuulku calayhi salaatu salaam: ma helaysaa waxaad qoor aad ku xurayso qof addoonnimo lagu haysto addoona. ilaa waagaas addoomanku waa iska fara badnaayeen, addooman badanaa jiri jiray. maxaa ilaha addoomanku waxyaabo hore oo dhaxal hore ku yimiday oo dadkii hore jaahiliyada ay haysan jireen shareecaduna aysan markaasi ka fasakhin
oo dhaqan loo haystay iyo waxay ahaayeen dad kaloo waxa weeye jihaadkii markii la galay oo gaaladii waxa weeye ilaa axkaam badana uu iska leeyahay dad markaasi waxa weeye addooman laga dhigtay ilaan haddii maaragtay dadkii la qabto rijaashi mooyaane oo muqaatiliinta ahay oo xugun iska leh haweenkii iyo markaasi caruurtii ayagu ka baqiyati lghaniimati weeyo markaasi waa addoomoobaayan kuwaas markaas saasaa addoomanku ay u tiro badnaa jireen haddaan se heda gaalo ina dad laga soo qabto cid addoonsaysa muslimiintii laguma arko nasiib dar hadda muslimiinta ayagaa la addoonsado haya waxaa arrintaas u keenayene manhajkii ilaahay iyo rasuulkiisa ay ka tageen marka waa u dhahay marka rasuulku calayhi salaatu salaam war waxaad naf ku xoraysa ma heli kartaa laa ayuu dhahay ma heli karow dhahay markaasuuna wuxuu dhahay fahal tastadiicu an tasuuma shahrayni mutataabicayni ma awoodaa 2 bilood oo xiriira inaad soonto ma awoodaa ilaa qur-aanka shahrayni mutataabicayni kafaarida oo dihaarkana saasay ahayd shahrayni mutataabicayni tanna lamid waaye mid kastoo kafaaro ah oo kafaaratulcudma ah shahrayni mutataabicayni maay haddii laga soo tago addoonkii la xureeyahay hadda xisan iyo sharcanaaba lagu waayaba maanta taas hadda maba laga hadlaayaba ee hadda nambarku wuxuu ka bilaabanayaa addoontaas waxuu ka bilaabanayaa soonkaasuu ka bilaabanayaa soonka qofkii awoodane waa inuu soonka soomaa waajibay ku tahay ee asoo soonkii awooda maya raashimaa iska dhiibayaa mukhayaro maahan kafaaradaanu mukhayaro lama yidhaahdo kafaarada mukhayaradaa waxaa weeye kafaarada la yidhaha markaasi oo kafaaratulyamiinka qofka hadduu wax ka dhaartay ee dhaarti uu buriyo kafaaradaasu kafaaro mukhayarahay noqonaysaa addoonumaba jirtaba marka 3 maalmoodoo la soomaayo iyo 10 miskiin oo laquud siinaayo 10 koomboo badara ama 10 shood la siinaayo qofku khiyaara u leey midou doonou samay karaa taasaa mukhayaro la yidhaah laakiin tan mukhayara ma aan muratabo weeye marka rasuulku calayhi salatu salaam waxa uu dhahay derajadii labaad ma awoodaa ayuu dhahay rasuulku calayhi salaatu salaam inaad xurays inaad soontaan dhihi lahay 2 bilood oo xiriira laa ayuu dhahay 2 bilood mutataabicayni shardi waaye qofka isagoo sooman haddii bishiio labaadoo sii dhammaaysa maalin ay ka fakato wixau soo sooma waxba kama jiraan gadaalow ka soo bilaaba mutataabicaynidaas shardi waaye waa qofku inuu ka fiirsadaa weeye ee ay maalmaan soomaa kabacdina maalin kalen soomayaa saas ma la yeelaayo mutataabicayni waa naski qur-aanka weeye sidaa markii nabigu dhahay qaala wuxuu yihi laa mayow dhahay xataa 2 biloodoo ma soomi karow dhah nabigu markaas wuxuu dhahay fahal tajidu maa tudcimu 60 miskiinan 60 miskiin waxaad markaas si aad ku quudisa ma helaysaa quudiskaana waa midkaa horuu soo maraynayo waxaa lagama wada markaasi quraac iyo qado iyo cashaa la siiyaa macnuhu maahan oo bisilaa badar bisilaa loo soo wacayo markaasuu cunaya raashin bisilow cunaya ma ahan macnuhu saas maaha ee waxaa la rabaa raashinkii kii lagu dhiibi jiray fitrada insha allahu tacaala og tegi doonaahe isagoo sidaas ayaa la rabaa 60 koombo ayaa la beegaya oo koombada madaalka ah waxaa waaye maaragtay 25 suus waaye maxaa yeelay suuski waa 4 amdaad waaye suuski waxaa waaye 4 koombo waaye marka waxaa la rabaa 60 koombo ayaa la siinaya hal qofna la siimaayo jamca 60 fardi waaye haddaad markaasi dhowr qofood amase 2 qof isku siisa ma kaa ansaxayso maxaa yeele waxaa la raacaya naska qur-aankaa raacaya 60 miskiina wey ayada laftirkeeda saas inay ahaataa loo baahan yahay marka ma heli kartaa u dhah rasuulku calayhi salaatu salaam 60 waxaad ku quudiso masaakiina laa ayuu dhahay haddana ma heli karow dhah hadda meeshaas meel looga sikada ma laha shibow ka dhah rasuulku calayhi salatu salaam waa ka aamusay suma jalasa dabeedna ninkii waa fadhiistay waa iska fadhiyaa marka de wax kaloo meel kaloo loo dhaqaajiya ma loo derbigo ku tegey fawtiya nabiyu sala allahu calayhi wasalam ayuu dhahay abu hureyra nabiga ayaa loo keenay bicaraqin fiihi tamrun waxaa loo keenay nabiga calayhi dambiil ama calaal ayaa loo keenay rasuulka calayhi salaatu salaam oo timiro ay ku jirto
maaragtay caraqaas dambiilkaas amase calaalka waagii hore calaalaa dhihi jiray baasha laga falkiyo oo laga sameeyo maaragtay timirta caleemankeeda ayaa laga falki jiray waagii horeba timirta waa lagu keeni jiray marka kaasaa loo keenoo timiru ku jirta ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam loo keenay waxaa waxaa weye markaas qufa waa la dhahaa maktal waa la yidhaha zambiil waa la dhahaa zambiilka laftikiisa soomaalida zambiil waa yaqaan dambiila iska dhaha laakiin za markay akhriyaan saxay u noqonaysa kaasaa la yidhaha markaas khuusu nakliyaa laga sameeyaa waxau qaadaa markaasi 15 suusow qaadaa suuskana waxaa weeye 4 mudmoaasaan haddaan sheegaynay marka 60 miskiinna waxaa loo dalbaya kaas wey likulli miskiinin muddun waaye miskiin kastaba hal koon baa la siinayaa waana weeye wasanka xaggiisana rodol iyo maaragtay rodol suluskiis waaye rodol iyo rodol suluskiis waaye ninkii markii nabiga calayhi salaatu wasalaam loo keenay caraqaas dambiishaas oo markaasi timirtu ay ku jirto waxau dhaha rasuulku calayhi tasadaq bi haada ayuu dhaha rasuulku midkaan sadaqaysow dhahay dambiilka kan amba calaalkan timirta ku jirta sadaqayso ninkii marka waxaa yahab noqotay asagaaba haddana wixii maaragtay la siiyey oo sadaqada loo siiyey ayuu sii hunguriyeyha ayadoo asagii waxaa weeye kafaarada ay ku jirto ayaa haddana bani aadamku waa iska nooce waa hunguri ka sii galay markaas timirtii oo 15 suuseed ama maaragtay 60 koombaa heeday ayaa asagii hunguri ka sii galay oo ninku waxuu ahay nin faqiira dadka badowda ahuna badanaa waxay isaga badan yihiin fuqaray u badan yihiin markaasuu wuxuu dhahay acalaa afqara minaa yaa rasuulallaahi ow dhahay annaga wax naga dhibaato badan oo naga faqiirsan miyaa jira oo wax la siihayow dhah wi asaga in asaga maaragtay in loogaga bixiya la rabay oo haddana inuu sii qaato u doonaya dadka dabiicadaka damacaa la abuuray war adigaaba hadda waxaa weeye dhibaata ay ku haysaaho ramadaan markaasi haweentaadi ku dhacay haddana intaas awoodi waaye wixii laguu sadaqaysama wax isaga bixisid intaas in laga yiraahay aheeday rasuulkeenu waa naxariis badnay calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxuu dhahay acalaa afqara minaa yaa rasuulallaahi annaga wax nooga dhibaato badan miyaa jira annagaaba u baahanow dhah fa wallaahi maa beyna laabatayhaw dhahay magaaladan madiino aan joogno dhinacyaasheeda ma ahanow dhahay ahlu beytin axwaja ilayhi minaa ahlu beyt ma joogow dhahay reer annaga nooga dhibaato badan ee maaragtay dambiilka kan timirta ku jirta cid annaga nooga dhibaato badan maanta lama arkow dhah saasou dhah ahlu beytin axwaja ilayhi minaa u dhah rasuulkeena hadde iska naxariis badnaay fadlaxika nabiyu sala allahu calayh wasalam nabigu waa ku qoslay calayhi salaatu wasalaam xataa badad anyaabuhu ilaa nabiga calayhi salatu wasalaam miciyadiisa ay markaasi ka muuqdaan qosolkiisa oo tabasubkaay ayuu nabigu alay dhoosha ou ka caseeyey macnaha wuxuu la yaabay rasuulku calayhi salatu wasalaam ninkan xaaladiisa uu la yaabanya macnaha wuxuu ka oda wallaahi yaa rasuulallahi laysa fi lmadiinati qowmun axwaja ilayhi mina nabigu waa ku qosla markaas waa la yaaba markaas marka sidaas markuu dhahay oo uu saas leeyahay nabiguna ku qoslay uma qaala rasuulku waxau dhahay calayhi salaatu wasalaam idhab fa adcimhu ahlaka la tagow dhahay adugu iyo ahalkaaga quudi ow dhahay idhab fa adcimhu ahlaka adigu waxa weeye la tag oo ahalkaaga quudi ayuu dhahay rasuulku calayhi salatu wasalaam maxaa yeele adiga ayaa quud u baahan waxau ka wada ahay rasuulku calayhi salam dhowr arrimoodaa xadiiskan lagu ta'wiilshaa oo meesha waxaa imaanaysa haddii hadda ninkan la yidhi adigu qaado ee ahalkaaga quudi hadda kafaaradii ma ku jirtaa mase waxaa weeye waa ay ka baxday taas waxaa weeye aimadu wax badanay ka hadleen waa la isku khilaafay laakiin sida raajixa waxaa la leeyahay kafaaradii waa ay ka baxday ilaa xadiiska nabigu calayhi salatu wasalaam ma uusan sii dhihin walkafaaratu calaykana ma dhihin rasuulku calayhi salatu wasalaam de kafaaradii adaa lagaa doonayana lama dhihin markaasaa waxaa la yidhi ninkan kafaaradii waa ay ka baxday
laakiin waxaa weeye khaasiyatun weye markaasi calayhi asagay khaas ku taha layidhi oo cid kaloo hadda maanta jirta in markaasi wixii kafaarada ay ku bixi laheeday ayadu ina cunto kafaara uga bixi mayso taas horta marka maadaama dhibaata ay iska haysay rasuulkeena naxariis badan yahay rasuulkeena alayhi salaam isaga ayuu khaas uga dhigayo adugu iyo ahalkaagu iska cuna saasaana kafaarada idinkaga baxday saasaa loo badan yahay sida markaasi waxaa weeye fadliga ilaahay wascigiisa iyo naxariista rasuulka alayhi salatu wasalaam lagu yaqaano taasay aheedaa layidhi oo macnaha alaana liidraarika ila alquuti adugu hadda iska cuna idinkaa quud u baahane wacinda alyasaari tajibu calayka alkafaara taasna dadaa ku fasiro waxaa la leeyaha layidhi hadda idinkaa waqtigaas dhibaata idin haysaa cuna laakiin kafaaradii waa lagaa rabaane saasna waa loola jeedaa saas weliba jamhuur badanaa qabta ama aday khaas kugu tahay ama sawaaba kaa dhacdayo kafaaro lagaa dooni maayo maadaama nin mucsira aad tahay saas waxaa qaba inkastoo loo badnayn in la yidhaahdo ciisa ibnu dinaar oo maalikiyada qowlulqadiim oo imaamu shaafici xataa saasou qabaa laakiin sida hadda culammadu ay u badan yihiin waxay leeyihiin ninkaas khaasaa looga dhigay maaragtaya saasaana kafaarad uga bacday laakiin cid kaleentood markaasi oo sidaas kafaara ugaga baxaysa ma jirto jamhuur badanna waxay yidhaahdeen maya kafaara kama bixine maadaama hadda adiga dhibaata ay ku hayso adaaba dhibaataysane ahalkaaga iyo adigu cuna kafaaradina waa lagaa doonayaho kafaaradii meesheedii ay taagan tahay aa laga wadaana waa layidhi marka taas waxaa weeye sidaasaan ugaga haraynaa marka in lays ilaaliyo ayaa loo baahan yahay bisha ramadaan lays ilaaliyo ayaa loo baahan yahay haddii wax dhacaanna arrintu sidaasay noqonaysaaho kafaaradii oo wiqaacu ramadaan waxaa loo marayaa heerarkaas ayaa loo marayaa waxaanu marka soo qaadanaynaa waxyaabaha soonka buriya waxaa ka mid a in wax la cuno waxna la cabo cunitaanka iyo cabitaanka aayadihii aanu soo mari jirnaanba ku soo qaadanay wakuluu washrabuu xataa yatabayana lakum اlkhayd اlabyadu min alkhayd اlaswadi min alfajri ثuma atimu siyaama ila leyli waa towdha ilaahi subxaanaه wa tacaala waxaa ka mid oo soonka jebinaya alqay-u camdan in mantaga kas laysaga keeno mantaga haddii ilaahay kaa keeno oo adiga maaragtay ou kaa qaalib noqdo sida aan soo qaada doono adoon ismantajin ayaa jira ku qabatay ama cuduraa kugu dhacay lalabo iyo waxyaaba badanaa ku soo dhaafay markaasaad mantagtay waana sooman tahay waad ka luqluqanaysaa soonkaagina waa kuu jiriyaa soona qaadaymaysid waa wada haysaa soonkaaga laakiin qofku haddou farta isgeliyo ismantajiyo ama waxau isku bantajiyo ou sameeyo waxaa weeye markaasi qalaa laga doonaya waana qof dimbaabou noqonayaa dembiyaa korkiisaa hadda wax kaloo u raacaya ma leh laakiin waa inuu soo qalaya waajib ay ku tahay maalintaas inta ka dhimane inuu soomaa waajib ku ah maalintaas inta ka dhimana waa soomaya waana soo qalaynaya wa calayhi dembu dembina korkiisa waaye haddou waxaa weeye asagu markaasi kas isaga keeno mantaga amase mantag kaliya ma ahane asagaa si kas oo ulakaca ayuu soonka u jebinayaa si ulakaca ayuu soonkiisu jebinayaa arrimahaas hadda waxaan soo qaadanaynaa axaadiis maxaa yeelay waciid soo arooray ayaa jira qofku asagoo saa'ima si markaasi aan cudurdaar lahaynin haddii waxa weeye oo wax u cuno abu hurayra xadiis laga wariyaa wuxuu ahay ou nabiga ka wariyey rasuulkeen wuxuu uri alayh الsalatu wasalaam man afdara yowma min ramadaana fii gayri ruksatin rakhasa allaahu lahu lam yaqdi canhu siyaamu dahri wa in saamahu bal u fiirsa xadiiskaas dad waxaa jira markaasi ayagoon waxba aan ahayn markaasi iska afura ayaa jira hadda waxa weeye maalintaas ka tagtay weligiis hadduu soomo maalintaas ajirki ka lumay adduunyada intuu ku nool yahay hadduu soomo maalintaas soo xasili kari maayo laakiin xagga xukunkay waxay ka tahay in maalintaas inuu soo qaleeya laga doonayo rasuulku wuxuu dhahay calayhi salaatu wasalaam man afdara yooman maalin qofki afura oo min ramadaana bisha ramadaan ka mid ah fii gayri ruksatin rukso asagoon haysanin rakhasaha allaahu lahu ilaahay u ruqseeyey masalan ba waa tii aan soo maraynayo
qofkii mariilka ahay, qofkii musaafirka ahay, naagti markaasi xaa'idada ahayd, naagti maaragtay nifaaska oo ilmaha dhashay, naagti ilmaha nuujinaysay, tii markaasi xaamilada aheeday, waxaasoo dhan ma ahan fii gayri ruksatin rakhasaha allaahu, asagoon haysan rukso ilaahay u rukseeyey inuu afuro, lam yaqdi canhu siyaamu dahri ow rasuulku, soonkaas kama gudaayo zaminka dhammaantiisou soomo, lam yaqdi canhu siyaamu dahri, daharkan waxaa laga wadaa markaasi zaminka dhammaantiisa ila alabad. wa in saamow haba soomo, maalintaas ka fakato saas ku fakiyey oo cudurdaar la-aanta ah, weligeed waxuu soo gudaaya, marka ajirkii maalintaas ka teg weligiis ku soo noqon maayo. macnaha waxaa weeye qofka afura fii yowmin min ramadaani bigayri cudrin sharciyin, cudur sharci asagoo nasaada soo sheegay sida marar iyo safar, haddana waxaa weeye caalim ku ah inay xaaraan tahay oo caamida, sawowga weyn ayaa ka tegaaya oo una halooleynin, zaminka dhammaantiis baa soomo. arrintaa marka waxaa weeye waa baraarujin la isku baraarujinaayo, soonka ajirkiisu aad iyo aad wax weyn yahay. maxaa yeele maalintii kas loo afuray si kasta oo intuu qofku nool yahay hadduu soomane ajirkaas usoo laaban maayo. marka waxaa weeye qadihii laakiin hadda maalin soo qaleesa huruushan waa ka dhacay, wax kafaaran korkiisa maaha, jamhuurtu saasay qabaan. laakiin imaamu maalik iyo abu xaniifa waxay leeyihin qofkii maalin afura soo caamida oo caalim ku ah, qadaa laga doonaya iyo kafaaro, oo waxay ka dhigan tahay asagoo markaasi ku afuray jimaac ku afuray. waxaa ujeedaa hadda laftirkeeda waxaa weeye saasay leeyihin aimadaas. imaamu maalik laba madhaboodaa qabta xataa in markaasi kafaaro laga doonaayo, laakiin imaamu axmed iyo markaas imaamuna ashaafici ma qabaan. waa yahay marka ramadaankii oo markaasi rukso la-aanteed la afuro waxa ka imaahaya waa arintaas aad iyo aad u dhibaatada badan ayaa ka imaahaysa, waa in la iska ilaaliyaa. marka xadiiskaas waxaa weye umahaadka intaan imaam muslim ahayn xadiis saxiixa waaye. waxaan soo qaadaynaa xadiis kaloo abu hureyre laga wariye oo nabiga ka wariyay alayh salatu salaam, rasuulkeen wuxuu dhahay man nasiya wa huwa saa'imun faakala ow shariba falyutima sawmahu fainamaa adcamahu llaahu wasaqaahu. masalan ba hadda soonkan la jebinaayo oo la iska reebay, ruux ayaa waxaa weeye soonkii ka buray, wuxuuna ugaga buray nisyaan ayuu wax u sameeyey. masalan ba jimaaca xataa haddii nisyaan loo sameeyo qofka soonku kama jebaayo, kafaarana laga dooni maayo. cunidda iyo cabitaanka haddii nisyaan loo sameeyo qofkii soonkii ka jebi maayo, iyo qay mantagi soonkii kama jebaayo. xadiiskan rasuulku wuxuu leeyahy alayh salatu salaam, man nasiya qofkii halmaama wa huwa saa'imun isagoo sooman, soonkii buu halmaamay, fa akala waa cunay, ow shariba amba waa cabay amba waa jimaacay, falyutima sawmahu rasuulku soonkiisa ha iska dhammaystirto, ha taam yeelo soomkiisa, fainamaa adcamahu llaahu wasaqaahu, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa quudiyey, ilaahayaana waraabiye. waa qof ilaahay subxaanahu watacaala inuu quudiyo alla uu u qadiray oo ilaahay u waraabiyey. macnaha waxaa weeye qofkii wax cuna waxna caba asagoo naasiya, waxaa weeye markaasi ma afuraayo, bal soonkiisa u xiriirsanayaa, soonkiisa baaqi ku ahaan wax qallaa korkiisa maahan, kafaaro laga dooni maayo. xadiis ibnu xibbaan weriye xaakimaha daliil ahoo man afdara fii shahri ramadaana naasiyan falaa qadaa caleyhi walaa kafaarata. rasuulkaa waxau dhahay alayh salatu salaam, qofka afura bisha ramadaan asagoo halmaansan, wax qadaana laga dooni maayo, wax kafaara laga dooni maayo. jamhuurta salaf iyo khalaf saasay qabaan. laakiin imaamu maalik wuxuu leeyahay qofka afura asagoo naasiya soonkiisi waa jebayaa, walazimahu lqadaa, qadana waa ku laasimaysaa u leeyahy. laakiin taas looma badna, taas looma badna weeye. maxaa yeele rasuulku alayh salaatu salaam soon waxau dhahay rasuulku aley falyutima sawmahu yow dhah, soonkiisa ha dhamaystirta u dhahay, fainamaa adcamahu llah wasaqaahu uu ku diray rasuulku. lafdi imaamu tirmidi uu leeyahay wuxuu ahay man akala ow shariba naasiyan falaa yufdir, qofkii wax cuna waxna caba asoo halmaansan yowsan afurin, fainamaa huwa risqun rasaqahu llaahu, waxaase waxaa weeye risqi ilaahay subxaanahu watacaala uu ku arsuqay waaye, soonkiisa yowsan iska furin, waa u jiraa soonkiisii.
saasaa loola jeedaa. marka waxaa la rabaa in soonka la ilaaliyo. hadday arrintaasu ay dhacdana ilaahay waa naxariis badan yahay inaan la isdhihin maaragtay soonkaaga waa kaa jabaye horay wax usii cun inaan la isdhihin. masalan ba hadda mantagu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha soonka jebiya haddii camdi laysaga keeno. haddaan laysaga keeninna soonka ku jebi maayo. xadiis abu hureyre laga wariyey ayaa sidaas ahayo asxaabu sunan ay leeyihiin, xaakimna uu wariyey oo uu saxiix yahay kitaabkiisa musadraga la yidhaah. abu hureyre waxaa lagu nabiga ka wariyey waxau rasuulku man daracahu lqaa'iyow dhah, mantagu qofka uu ka qaalib noqdo wax mantag uu soo dhowdo wa huwa saa'imun isagoo sooman falaysa calayhi qadaa'un, qalla korkiisa ma aha. waxa laga doonaya soonkiisana waa iska sii wadanaya. hase yeeshee wa in istaqaa-u rasuulku hadduu asagu mantaga iska raadiyo ismantajiyo falyaqdi ha soo qaleeyo qado kaliyaha laga doonaya. laakiin sawowga oo hore usoo maraynay waa qof marka soonkiisa iska jabiyey asagoo wax cudura aan lahayn. adduunka intuu ku nool yaho hadduu soomane maalintaa usoo laabamaysa ajirkeedii. laakiin qallaha waa laga doonayaaho qalaa laga rabaa. wa in istaqaa'a falyaqdi ow dha rasuulku hadduu ismantajiya ha soo qaleeyo. riwaayad kale waxay aheeday waman istaqaa'a camdan qofkii ismantajiya si kas ah oo ula kaca falyaqdi ha soo qaleeyo. saas ayaa marka waxa weeye haddii la mantago adigoo waxba aana u qasdayninoo qalabo ay aheedayoo kaa qaalib noqday soonkii kaa jebi maayo. dad badanaa ku dhahay waa mantagaye haddee soonkii ma iga jabay, soonkii kama jibin. hadduu ismantajiyo marka soonku ka jebaayo weye, kaasna waxaa ka ratimaysa kafaaro ayaa ka imaahaysa. marka waxyaabihii markaasi soonku ku jabaayey iyo waxyaabihii markaasi waxaa weeye ka ratimayey maaragtay darsigeenan 18aad intaas ayaanu ku qaadanay. haddana darsigeen intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanaه wa taعala aclam. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu.